wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan wada tashi isugu yeedhay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda. Ujeedada guud ee kulankani ayaa ahayd sidii agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu ay uga qayb qaadan lahaayeen diyaarinta siyaasadda dabagalka iyo qiimeynta ee heer qaran, iyadoo hore ay wasaaraddu kulamo noocan oo kale ah ay ugu yeedhay agaasimayaasha waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda iyo sidoo kale hay'adaha maxalliga ee ka howlgala gudaha Soomaaliland. Intii uu kulankani socday ayaa waxaa agaasimayaasha loo soo bandhigay siyaasadda dabagalka iyo qiimeynta ee heer qaran. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi hadal ka jeediyey agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Faysal Cabdiraxmaan Madar iyo maxaa ku dhahay draafkii siyaasadda heer qaran ee qiimeynta iyo dabagalka horteena ayay yaalaan. marka qof kasta agaasimo kasta waa haystaa nuqul ka mid ah dokumentiga runtii qaran ee qiimaha la ayaynu maanta u fadhinaa halkan. intaasi kadibna waxaa ujeedada kulankani faahfaahin ka bixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ujeedadaynu maanta isugu nimi sidii ku cadayd casuumadii aanu idiin soo dirnay waxa weeyaan inaynu falanqayno la fagurno tala ku darsanno hareeraha ka istaagno siyaasadda qaran ee qiimeynta iyo dabagalka oo hadda ku jirta hanaankii maxay ahayd aynu u mareynay dhamaystirkeeda iyo muxuu ahaa diyaarinteeda. sidaynu la soconno marka siyaasad la diyaarinayo siyaasadda la diyaarinayo waxa laga maarmaan ah in lala tashado oo ay talo iyo maxay ahayd fakarba ku yeeshaan cidda hadhow toole fulinteeda ka mas'uul noqonaysa ama cidda hadhow toole lagu dhaqayo. siyaasaddan marka ay ansixiyaan golaha wasiiradu hadii la hay'admo ay noqoto siyaasad qaran cidda ugu muhiimsan ee siyaasadda fulinteeda u noqonaysa tiir dhaxaadka waa agaasimayaasha guud ee hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo waaxyaha u qaabilsan dhinaca dabagalka iyo qiimeynta oo waaxyaha qorsheynta iyo muxuu ahaa statistikada. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe oo kulankani qayb ka ahaa ayaa ka warramay muhiimadda ay siyaasaddan u leedahay guud ahaan qaranka Soomaaliland. runtii waxay ka mid tahay in hawshan imika maanta halkan u fadhinaa hawlaha udub dhaxaadka u ah ama aasaaska u ah ama mucda ah inaynu ogaano la socono dabagalno shaqadaynu qabanayno wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu iyo institutionska dawladdu dhami qabanayaan bal inay sidii loogu tala galay shaqa ahaan iyo hawl ahaan u qabsoomeen waxaynu ku qiyaasno ku cabirro inuu isku saxno inay noqoto warbixinaha ka soo baxa. marka buuggan halkan wasaaradda qorsheynta ay halkan isugu kan yeedhay annagoo isticmaalayna mashruucan World Bank naga kabay dib u habeynta shaqaalaha aanu qayb ka ahayn waxa uu muhiim u yahay inaynu shaqooyinkeenu qaranka u haynayno qabanayno ku sugno inay waafaqsan yihiin National Development Goalskii NDP2 waliba. ugu dambeyn waxaa kulankani si rasmi ah u daafuray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shabeyn, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa farxad weyn way tahay inaan munaasabadan oo aad looga soo qayb galaan ka qayb galo furana waxaan maleeynaa ujeedada shirkayna isku wada fahmino Mubarakna uu sheegay Farxaanna uu sheegay monitoring and evaluation policy hadii af Ingiriisi lagu sheego ama halkan waxa la dabagalka iyo qiimeynta halkan waxa ka dheeriyada learning and accountability jigno laba component lagu soo kordhiyay caadiga hay'adda conventionalka monitoring policy and evaluation kee jidda monitoring and evaluation policy kullu waa iska fahmaysan waxa weyn in mashruuc wax kasta la sameeyo in la ogaado yani deeqim in wixii la qorsheeyay ay si sax ah ku socdaan kaloo in lagu xisaabtamo wixii inay hirgalaan iyo accountability learning ba ku jira. marka waa document complete aan isleenahay hase yeeshee waxa weeyaan maladii national policy ay noqonayso waa in la wada yeeshaa wixii oo dadkii fulinayay iyo dadkii lagu isticmaaliyay kulli ay acceptance keenaan. waxa laga yaabaa inay anagu isleenahay way dhamaystirantay laakiin defects badan ay yeelan karto ama meelka loonay ama deficiency ay leedahay. ujeedada shirkan aan qabanayno waxa weeyaan maadaama aan aqoon badan iyo experience ina ku biirisaan wixii fikradaha isleedihiin waxa waa laga tagay يعني ده هو وجدوا وين وحوين inputs كده اللي كان أو ده secret كلاو evaluate كرسان سياسة
si ay dee national policy u noqoto aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa contributionkana waan soo dhaweynanaa very critical ha noqdo